waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan dhammaantiin idin salaamay asxaabteyda. Insha Allah maanta waxaan isku dayi doonaa inaan idinla sheer gareeyo qaabka numberska moobilka kugu jira aad sim cardka kugu save garaysnaa aad ugu wareejinayso dhinacaasi gmailka si aanay mar dambe kaaga bixin. Fideogii kan horreeyay waxaa ugu saabsanaa qaabka loogu save garaysto gmailkaaga nambarada gmailkaaga, laakiin wuxuu ku saabsanaan doonaa nambaro hore kugu save garaysnaa sim cardka oo doonaysa inaad gmailka ku wareejiso si aanay mar dambe kaaga bixin. Okay, insha Allah step baynu iskula socon doonaa. Marka koowaad waxaad tegaysaa barta ay ku qoran tahay contactska moobilkaaga ayaa tegaysaa oo halkaas contacts aad ku dhufatay. Kadibna waxaad soo furi doontaa saddexda dhibcood yar halkaas ku qoran. Kadibna waxaad kasii tegi doontaa manage contacts ayaad kasii tegi doontaa. Markaas kasii tagto waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay import or export contacts to your phone or export them to another location. Okay, waxaan ku dhuftay halkaa. Markaan ku dhuftay waxa aan doonayaa hadda inaan nambaro igu jiray sim cardkayga aan ugu wareejiyay gmailka. Marka waxaan taabanayaa import ku dhufto. Waxaan taabanayaa in hadda internal storage ma jira nambarada sim card bay ugu jiraan. Waxaad ku dhufanaysaa sim1 halka ay ku qoran tahay sim card. Markaan ku dhuftay aniga imka numbers iguma jiraan sim cardkayga gmailka u save garaysan. Saa daraadeed labada nambar waxaan uga dhigay tusaale ahaan marka nambarkaas saas ugu dhuftay. Haddii nambar badii nambar taayir oo ku qoran tahay ku dhufanaysaa and then dhan baad ku dhufanaysaa. Marka haddaan tiraahdo okay gmailkaaga bartaas ugu qoray waa labada gmail baan leeyahay. Kolba kan jecel waan doonaa inaan ku soo dhufto. Okay, Google baan oranaya bonada laba gmail.com gmailkayga sii dhuftay import baan ku dhufanaya to contacts ka xagga saraadkiisa to contacts imported. shaqadan saas ugu dhawaatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi